Militariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliya ee dhacday sanadkii 1991 kadib calanka Soomaali weyn ayaa laga taagay gobolka Gadow. Xuduud beenaadka ay Soomaaliya iyo Kenya wadaagaan ayuu halkaas ka babanaya. Ciidamo si gaar ah u tababaran ee Gorgor iyo Haramcad ayaana halkaas lagu daadgureeyay, iyadoona maleeshiya beeleedka ee Kenya halkaas ka jooga ay ka carareen. Ciidamada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa la degay meeshaas hub iyagoona dhoolatus u eg ay sameynayeen, waxaana halkaas 24 saac lasoo dhaafa ka babanay calanka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Kenyaatiga halkaas ku sugan ayaana aad uga naxsan arrintan. Dowladda Federaalka Soomaaliya waa inay halkaas ciidamada ku sii xoojisa. Jaajuuska Kenya oo u jooga Jubbaland Axmed Madoobe ayaa damacsan in ciidamada Soomaaliya laga soo saaro, balse sida dowladda Federaalka Soomaaliya ay sheegtay arrintaas way ka dhiga adeegtay. Waana arrinta ay maanta ku farxaan dhalinyarada Soomaaliyeed iyo dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed. Ciidamada Soomaaliya oo celinaya cadawga shisheeye aad bay arrintaasuna u wanaagsan tahay in la sii bogaadiyo. fadlan booqdi YouTube-ka Runugood Media si aad uga heshiin xogag badan halka aan soo gelino. Fadlan la share gareeya, like na saara, mahadsanidin. Soo gaaraysiisana badiya.